Halkani waxa ka socoto quudin sida idiin muuqato. Shimbirta hooyada ahi waxay ka mid tahay xayawaanka baalaleyda ah ee sida maalinlaha u quudiyo ciyaalkeeda amaba ubadkeedaba. Sida arkaysaan, way u soo qaraabaysaa isla markaana waxay u qaybinaysaa wixii ay ka soo heshay duurka. Si cadaalada ayay midba mar afkeeda ugu ridaysaa, isla markiina waxay doonaysaa qaraab kale. Maalintii dhowr iyo 10 jeer in ka badan ayay u keentaa cunto ay duurka uga soo raadiso iyadoo u shaqo tagayso. Waxaase xusid mudan hooyadu inay tahay mid qalbigeedu aad u nugul yahay isla markaana si taxadir leh u korinayso ubadkeeda. Sheekadu ma ahan muuqaalka hadda aad daawanaysaan oo kaliya, balse waxaan idin hayaa marxalad ka duwan marxaladda hadda aad arkaysaan. Hooyadan iyo ubadkeeda ku jira farxadda iyo reereynta waxaa ka dambeyn doona marxalad aad u adag, isla markaana ay kugu adag tahay inaad daawato. Weli hooyadu waxay ku jirtaa qaraabka ubadkeeda, ha yeeshee mid ka mid ah xayawaanada ku xamaasho bogga amaba loo yaqaan xamaratada. Aan ku qeex magaciise waa xayawaanka loo yaqaan maska ayaa goor dhow waxa uu ku soo dhex dhici doonaa ubadka hooyadan ay qaraabku u maqan tahay. Sida aad arkayso, halkaas ayuu ka muuqdaa geedka dushiisa. Waxaa laga yaabaa inaad si fiican weli aadan u arag, laakiin saddexdan ubadka mid ka mid ah ayuu malakamiidkiisi halkani ku soo idlaan doonaa. Sida aad arkayso, wuxuu ka soo degay qaybta sare, mid ka mid ah ayuu sallaacay, waxaase goobta isaga farxaday labadii kale. Waa murugo marka aad daawanayso muuqaal caynkan oo kala hooyo ubadkeeda ugu maqan qaraab markii musiibo sidan oo kale ay ku habsato. Waxaan filayaa muuqaalkan guntiisa iyo gabagabadiisa inaad fahamtay. Sii sheer garay la wadaag saaxiibada